وزيرك وزارة ماركت محاية دولستا وزير الدولة هراء iyo wasiir dawlaha cusub iyo madaxda kale ee agaasimaha guud iyo xildhibaanada iyo shaqaale weynaha wasaaradda duulista kulligeenba waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigu wasaaradda dhinacaan kaga xidhanahay waxa weeye waa dhinaca airportka Burco marka haddaan maaragtay maxay tahay labada ay maaragtay wasiir dawlaha isbedelaya haddaan xoogaa yaroo macluumaad aan ka bixiyo airportka Burco ama xitaa wasaaradda naftirkeeda maaragtay waa la idinku tuhmayaa wasaaradda shaqaalaheeda marka waa la idin wareysan karaa wax la idin oran karaa war airportka Burco xaalkiisa xaguu maraya marka waxaan jeclahay inaan wax yar oo kelimad yar aan ka ilaahdo airportka Burco iyo xaalkiisu meesha uu marayo dhawaan bishii Abriil waxaa la bilaabay airportka Burco in runwaygiisii maaragtay maxay tahay la dhiso dhismihiisii ayaa la bilaabayaa dhismihiisana qaybta ugu horeysa ee la sameynaya waxa weeye in dhulka maaragtay dhulka ciidda Burco wayara maaragtay maxay tahay aadna uma xuma ku ciidaha wanaagsanna maaha marka dhismayaasha maxay tahay laga hadlayo marka in ilaa 1 kilomitir in la qodo oo dhulka hoos loo qodo ayaa lagu talagalay hawshu hadda socotaa maaragtay maxay waataa laakiin iyada naftirkeedu hawlo badan oo maaragtay maxay tahay barbar socda ayaa jira oo dhulkii banayntiisii oo u baahan maaragtay maxay tahay in dhulku airportka Burco hadda waxa xidhan 3 kilomitir iyo 200 3 kilomitir iyo 200 mitir ayaa xidhan oo silig iyo derbi iyo maaragtay maxay tahay ku xidhan waxaase ay ku talisay in 5 kilomitir laga dhigo dhulka la xidhayo 2 kilomitir oo labada jaho maaragtay maxay tahay ka kala jirayo oo diyaaraddu markay soo dhawaanayso dhulka ay ku soo dhawaan lahayd iyo 3 kilomitir oo noqon doona maaragtay maxay tahay runwayga naftirkiisa ee la dhisayo marka 2 kilomitir ayaanu hawshoodii ku jirnaa sidii 2 kilomitir ziyaadada ah dadkii loogu qancin lahaa maaragtay maxay tahay loo raali gelin lahaa inay maaragtay maxay tahay ay qaataan oo maaragtay maxay tahay inuu airportka lagu soo daro hawshaasi iyadu maaragtay maxay tahay waa hawl noo taala dhaqaalihii naftirkiisu lagu dhisi lahaa wasiirka iyo maaragtay maxay tahay wasiirro kale way ku mashquulshan yihiin wasiirka duulista iyo wasaarado kale way ku mashquulshan yihiin sidii maaragtay maxay tahay loo soo xasilin lahaa lacagta lagu dhisaayo waxaanu rajaynaynaa inuu ka mid noqdo maaragtay maxay tahay madaxweynaha maaragtay maxay tahay hadda jooga intuusan ka tagin inuu maaragtay maxay tahay meel fiican la gaadhsiiyo ayaanu aad iyo aad maaragtay maxay tahay ayaanu u rajaynaynaa halkaas ayay maaragtay maxay tahay ishu maraysaa run ahaantiina hawl fara badan ayaa maaragtay maxay tahay taalla wasiirku maaragtay maxay tahay agaasimaha guud iyo wasiir dawlihii hore iyo kan hadda imaanayana waxaanu leenahay maaragtay maxay tahay waa hawlaha dhiman ee wasaaradda ku dhiman maaragtay maxay tahay aad iyo aad ka loo filayo inay ugu yaraan meel fiican gaadho intaan maaragtay maxay tahay isbedelka maaragtay maxay tahay dawladdu uusan maaragtay maxay tahay dhicinin ayaan rajaynaynaa aad iyo aad baanan ugu mahadinaynaa haddaanu nahay guddigii dib u dhiska madaarka Burco oo aan anigu guddoomiye u ahay aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa maaragtay maxay tahay wasiirku maaragtay maxay tahay hawsha wanaagsan ee juhdiga faraha badan ee uu bixinayo waxaa la mid ah maaragtay maxay tahay wasiir dawlihii maaragtay maxay tahay hadda xilka wareejinaya oo maaragtay maxay tahay hawshu maaha oo kaliya gacanta laga haye dhiirigelin iyo maaragtay maxay tahay hawlo badan oo waxaa jira qiimo badan ku fadhiyo laga yaabo inaan qadarintooda siyaabaha sida kuwa kale waxyaabaha sida loo qadariyaan loo qadarin karaynin aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa wasiir dawlahan maaragtay maxay tahay maanta maaragtay maxay tahay tagaya wasiir dawlaha kalena waxaanu leenahay hawshaasi waa hawl inoo taala inaad maaragtay maxay tahay intii tamartaada aad ka qayb qaadato waxaan la ilaawi karaynin doorka agaasimaha guud oo runtii de maaragtay maxay tahay hawsha tan isaga naftirkiisu dadka aadka ugu gacanta banaan ugu maaragtay hawlaha muhiimka maaragtay hawlo badan oo muhiima ayuu airportka Burco maaragtay maxay tahay ku darsaday
وأرين ماركت محايد نفتر كده تحكيلين تدايله dad badan oo maaragtay maxay tahay agaasimaha mashaariicda oo naftirkiisu maaragtay Muuse naftirkiisu maaragtay maxay tahay de waa mashaariicdooda si hoos timaada maaragtay maxay tahay airportka Burco marka isaga naftirkiisu ku baadinayna rag badan oo kale oo maaragtay maxay tahay maamulaha madaarka Hargeysa naftirkiisu waanu maaragtay maxay tahay waanu kollaan ka basayro nidhaano war sida hawsha halkaa uga socoto ma xagga kale uga socon weyday ugu yaraan dhiirgelin waanu maaragtay maxay tahay waanu ka hadlaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wali waxaan ku soconnaa xafladeena cid walba way joogtaa ganacsataa joogta bulshada rayidka ayd baa joogta wasiiraa jooga shaqaala jooga dhinac kasta culimaa joogta marka kolba dhinac baynu bal hadda ka eegi doonaa imanka waxaan u kacaynaa haddii ilaahay yidhaahdo dhinaca ganacsatada ayaan u kacaynaa waxaan halkan uga yeedhayaa xubin ka tirsan ganacsatada jamhuuriyadda Somaliland Master Ahmed Shabac ku soo dhaw inaha dhamaan halkan isugu yimi bahda saxaafadda hadalka waa soo koobayna kulay sidii inuu naga codsaday waana Ramadaan oo dadku sooman yahay anagu waxaan ka mid ahay gudida gobolka Togdheer wasiirku ka yimi marka inaanu ka daba nimaadno oo dardaaran siino ayuun baan halkan u nimi runtii nin qaaliya baa maxaa reer Hargeysa kolba nin bay naga soo baxaano nin qaaliya bay naga soo kaxeeyeen wuxuu ka mid ahaa gudoomiyihii ganacsatada ee gobolka Togdheer isla markaa waxaan ka wada mid ahay gudida abaaraha gudida taakulaynta gobolka waxyaalo badan waxaan filayaa firfircoonidii halka la joogay de halkana waxbu kaga tari doona qofku kolba halku tago oo muddo wax ka qabtaa hadii alla ka dhigo wasiiru dawladda horena waa si baarigayna isagana waxaan leenahay meel wanaagsan baad soo gaarsiisay isagana waxaan kula dardaarmaynaa saddex arrimood oo daada ka kaca diinta ilaalinteeda waxa way qofku markuu mas'uul qaran noqdo waxa weeyaan de uu ka baxay meelihii hore joogay ilaalinta diinta dadka iyo dalka saddexdaba inuu aad u ilaaliyo oo mas'uuliyad ka saaran tahay ilaahayna xilka ku asturo insha Allah wasiirka loo keenayna waa nin ganacsada hore oo Farxaan Aadan Haybe isagana nin isla garan waayaan maaha oo kulay si fiican bay wada shaqeyn doonaan hadii alla ka dhigo airportkii Burcana waa maxaa carabka lagu sii dhuftay oo maamulna waa tihiin idiga laftiina airport qori inuu idin faraado waa laga fiican yahay dhowr airport inay idin faraadaan way wanaagsan tahay marka intaas ku soo koobilahay wassalaamu alaykum warahmatullahi waxaan imanka u yeedhayaa xubin ku hadli doonta afka shirkadaha ka howlgala dhammaan madaarka caasimadda jamhuuriyadda Somaliland wasiiru dawladda hore Axmed Nuur Faaye wasiiru dawladda cusub Axmed Cali Maxamuud agaasimaha guud iyo maamulayaasha madaarka iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan xil wareejinta labada wasiiru dawle waxaan soo dhaweynayaa waan salaamay salaanta islaam inta ka bacdi kelmadda la dhiibay dekadis bay ahayd oo arkiiseen magaca shirkadaha ka howlgala ama la shaqeeya wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka jamhuuriyadda Somaliland maadaama magacoodu ku hadlayo anigoo shirkadda naasha ee qaabilsan adeegyada gaarka ah ee madaarada Somaliland loo yaqaan Grand Handling Service-ka shirkado dhowraan marka wasaaradda gacmaheeda u nahay shirkadda naasha handling ka qaabilsan shirkadda Star Aviation oo qaabilsan fuel supply-ga ama fuelka la siiyo diyaaradaha shirkadda SRM oo qaabilsan adeegga security-ga ammaanka garoomada Somaliland shirkadda Delta oo qaabilsan baarkinada iyo qurxinta bilicda hore ee maaragtay madaarada dhammaan shirkadahaasi waxay gacmaha ay wasaaraddu ku duusho yihiin hawlaha aadka u ballaaran ee ay wasaaradda duulistu gacanta ku hayso anigoo magaca shirkadaha ku hadlaya waxaan ugu horeyn soo dhaweynayaa wasiiru dawladda cusub Axmed Cali Maxamuud waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawow insha Allah waxaad arki doontaa anagoo si wanaagsan kula shaqeynaa ku taageerayna sidoo kale wasiirkeen wasiiru dawladda hore Axmed Nuur Faayana waxaan leeyahay si wanaagsan baad noola soo shaqeysay oo firfircooni
iyo activenimo ay ku jirto aad baad mahadsan tahay intaasana kusoo gabagabaynayaa aad iyo aadna waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamayaa dhammaan madaxda wasiira dowlaheennii hore axmed nuur faahiye wasiira dowlaha cusub axmed cali maxamuud agaasimaha guud agaasimayaasha waaxyaha dhammaan shirkadaha ka howlgala madaarka Hargeysa marti sharafta kale ganacsada leh ee soo dhaweynba xildhibaanna leh aad baan idin salaamayaa salaanta islaamkaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladeennani maanta waxay weeyaan xaflad aynu soo dhaweynayno wasiirkeena wasiira dowlaheena axmed cali maxamuud iyo wasiira dowlaheennii hore oo aynu sii sogootayno axmed nuur faahiye axmed wuxuu inoogu jiray kaalin aad u wanaagsan agaasimayaashayada ahaan horta aad baan u tabaynaa axmedna waxaanu filaynaa inuu noo buuxiyo kaalintaasi axmed aad baan kula shaqaynaynaa wasiir soo dhaweyn wanaagsan baan ku leenahay annaga shaqaalaha iyaguba sidaan axmed ula shaqaynaynay iyo kaalintii inoogu jiray baan ku buuxinaynaa sidaan ilaahay ka rajaynayno axmedna waan sii sogootaynaayo ducaan ku sogootaynaayo ilaahay meesha meel masab ka sareeyo manfac ka sareeyo ilaahay siiyaan ku ducaynaynaa wasiira dowladana waan soo dhaweynaynaayo waan u ducaynaynaa isagana in xilkaasi ilaahay u fudaydiyo sidaa iyo wada shaqayn wacan duulista iyo hawada gudoomiyaha qurbajooga jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. Dayaxweerar xildhibaanka Araale oo xildhibaanada imika dhammaan madaxda iyo marti sharafta kaleba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan haddii aan ku hadlo malaa afka maamulayaasha madaarada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan jecelahay anigoo matalayo oo magacoodii ku hadlaya waxaan jecelahay marka koobaad inaan wasiirkeenii horena mid idhaahdo wasiirka cusubna dowlaha cusubna mid idhaahdo allahumma shaqaale weynahana kelmaduun inaan idhaahdo sida la wada socono wasiirkii hore wasaaradda duulista iyo hawada wasiir dowlihii wasaaradda duulista iyo hawada axmed nuur faahiye qof kasta oo shaqaale ah oo madaarka iyo wasaaradda iyo madaarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ka howlgala waan qof walba uu dareemi karayaa qiimihii iyo sharafkii iyo karaamadii uu inaga mudnaa baan jecelahay qofka bilaadanka mas'uula marka xil loo dhiibo qofku xilka labun buu ka dhaxladaa qofkaas isagoo la karaahsanayo oo allahumma salli ala shaqaaluhu si habaarayaan inuu ilaahay bay naga kaxeeyay iyo qof la jecel yahay oo loo buseelay oo allahumma salli ala bedelkiisa ay shaqaaluhu ka warwaraan waxaanu qoraynaa madaarada jamhuuriyadda Soomaaliland haddaan nahay in allahumma salli ala Muhammad Ahmed Nuur Faahiye bahdi iyo feeshkii madaarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhami in qalbigiisii wanaagsanaa niyadiisii furnayd kala jecelaantii shaqaale weynaha wasaaradda duulista iyo hawada mid ay tabi doonaan oo allahumma salli ala Muhammad ay xasuusan doonaan oo qalbiyada iyo qulubaha dhammaan shaqaalaha oo dhan mid ku suntan in ay tahay baanu qoraynaa qof wanaag ku sifoobay inuu habaanu halkan aanu ka cadeynaa wasiir dowlaha cusub isagana sidaa la sheegay waxaanu jecelahay wanaagaas aanu ku sheegnay wasiir dowlaha cusub inaan adiguna insha Allah aanu kala kulmi doono xantu shaqaaluhu dadku inta wala isku xantaayo waxa la yiraahdaa markuu wasiiraba la bedelo shaqaalaha iyaga ama wasiir cusub yimaado wala yara falanqeeya wasiir waxa la yiraahdaa yaqaanay waa qof caynkeeya waa qof sidee wala si yar falanqeeyna waxaanu ku sheegaynaa adina dadkii aqoonta ku lahaayay aanu wareysanay inay xanta fiican ay nooga ka keenaan la yiraahdeen wasiirkaas waa nin noocaas mudakara insha Allah inuu wada shaqeyno oo alla adigana mudakarnimadaas iyo odaytinimada lagu sheegay inuu kugu garab istaagno inuu kugu soo dhaweyno ayaanu iyadana taana aanu ballan qaadaynaa aanu kala kulmi doono alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wasiirka wasaaradda duulista hawada Farxaan Aadan Haybe labada wasiiru dowladda xilka la kala wareegaya agaasimaha guud ee wasaaradda maamulayaasha dhammaan marti sharafta xafladan ka soo qayb gashay waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waantii sharaf weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo xafladan xil wareejinta ee ay xilka kula kala wareegayaan labada wasiiru dowle
oo labaduba runtii ugu qaali ah labada waan xildhibaankooda ahay khaaska ah wasiirkii hore wasiiru dawlihii hore Axmed Nuur Faahiye Cali waa sii sagootiyeynaa sida idinkuba sheegteenna waynu ducaynaynaa ilaahay xil ka sarreeya iyo himad ka sarreysa ilaahay inuu gaadhsiiyo run ahaantiina islaamu markii awrka rarayga ah ee reerku ku guuro marka la furo ee uu daaq tago maalinta dambe reerku guuraya la soo qabto waxay yidhaahdaan hawlka madaale weli waa hogadi waxay u sheegayaan inaan laga maarmin berrina loo baahan yahay la nasiyay xilka qarankuna waa meerto maalin banin baa haya Axmed Nuur Faahiyena qaranku kama maarmin waa u baahan yahay mas'uuliyadii xilkii saarneedna way saaran tahay insha Allahuna waa gudan doonaa tirada yar ee wasiirada ama maamulayaasha ama markaa xil ku magacaabanina de inta ka badan ee qaranka hawl haysaba ka badan oo laga rabo marka uu xilku ku magacaaban yahay culays baa saaran marka xilka laga qaadana culays baa saaran culayskii xilkii waa ku saaran yahay qarankuna waa ku hanwen yahay shaqaalaha wasaaradda iyo dadka kula xiriirka leeyna ruuxantii maanta ay ku soo jeediyeen ruuxantii waa maanaad mudan tahay ilaahay himadaada kor ha u qaado isaga waynu sii sagootiyeynaa oo intaas ayaan ku dhaafaya wasiiru dawlaha cusub ee xilka loo magacaabay Axmed Cali Maxamuud Xuseen Axmed Cali Baynax isagana waa soo dhaweynaynaa oo xilkan cusub ee loo magacaabay waxaanu leenahay ilaahay kugu asturo waa amaano qaran kii dadka uu wasiirka u yahay iyo shaqaalaha dhammaan ruuxantii ay ku farxaan aanay ka nixin ilaahay ka yeelo ruuxantii waa nin xil badan hore soo hayay wuxuu ahaa gudoomiyihii rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer ganacsatadu waa ogtihiin oo ruuxantii marka le waa ganacsato waxaad markiiba sawiranaysaa dad levelkoodu sareeyo qaali ah oo jamhuuriyadda kaga jira meel qaali ah gobolka Togdheer waa gobolkii labaad ee jamhuuriyadda halka uu joogay jamhuuriyadda waxaad ka garanaysaa wuxuu ahaa gudoomiyihii rugta ganacsiga ee gobolka Sanaag dadka creamka ee khiyaartaaba iska soo xulay oo gudoomiye ka dhigtay xilal badan oo kale uu hayay waxaan filayaa isagana insha Allah taala inuu ahaan doono wasiiru dawlaha isku baraadaan aydan quursan aydan hoos u eegin himmadiina kor u qaada ayuu isaguna insha Allah taala ahaan doonaa ugu horeyn wasiirka wasaaradda duulista Farxaan Aadan Haybe labada wasiir dawlad isbedelaya laba Axmed weeyaan xildhibaan Caraale gudoomiyaha qurbajooga agaasimayaasha dhammaan marti sharafta halkan ka soo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan runtii aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa sida uga soo qayb gashaan xafladan qiimaha iyo qaayaha leh ay xilka kula kala wareegayaan labada wasiir dawlihii hore wasaaradda duulista iyo hawada Axmed Nuur Faahiye iyo wasiiru dawlaha cusub ee wasaaradda duulista iyo hawada Axmed Cali Maxamuud runtii aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa runtii hadalka intiisii badneyd waa la yidhi waxaan runtii halkan si gaara uga sii sagootiyayaa wasiiru dawlihii hore wasaaradda duulista Axmed Nuur Faahiye oo runtii saaxiib gaar ah aan aniga ahay muddadii uu halkan igala shaqaynayayna runtii aan ku bartay dabeecad wanaag iyo dadnimo jacayl iyo runtii shaqada oo uu team work aad iyo aad runtii ugu wanaagsanaa runtii aad iyo aad baan Axmed uga mahadcelinayaa waan la qabaa dadka halkan ka sheegay inuu Axmed u qalmo xilkan ka sareeya insha Allah taala waan u rajaynaynaa dalkii dadku uu u baahan yahay Axmed wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii reer Soomaaliland ee Mareykanka joogtay xisbiga kulmiye barkii la aasaasay xubnaha firfircoonka ahaa waqti badan soo galiyay taladii xisbiga kulmiye dalka ku guuleystayna qayb weyn ku lahaa imika muddo 4 sano ee wasiir buu ahaa wasiiru dawlu ka soo noqday wasaaradda waxbarashada waxaan isleeyahay Axmed waxa loo yara nasinayaa inuu meel ka sareysa halkan uu fuulay insha Allah taala waa ugu ducaynaynaa wasiiru dawlaha cusub Axmed Cali Maxamuud Cali Baynax waa runtii waan soo dhaweynayaa sida la sheegay waa nin reer Togdheer ah oo ganacsatadii Togdheer sidii soo sagootiyeen ayaad ka garanaysaa marka waxaan leenahay runtii caasimadii buu yimid loo baqan maayo dadkiisii buu yimid
shaqadana runtii halkaa axmed dhigay meel ka fiican buu sii gaadhsiin doonaa waxaan halkaa intaa u yaro dhaafi lahaa wasaaraddan duulista marka laga tago adeegga ay dadka u hayso waa wasaarad dagaal ku jirta waxaa ogtihiin dhulkeennii iyo baddeennii waynu maamulnaa laakiin cirkeennii ma maamulo qaramada midoobay baa haysa waxaana maalin iyo habeen u hamiyey digle in laynagala wareega hawadeennii oo dowladda muqdisho ay doonaysa inay keligeed ku maroorsato arrintaa runtii qarankuna uu ka feejigan yahay waxaana qaranka wakiil uga ah tiimka wasaaradda duulista ka shaqeeya ee uu hogaamiyey farxaan aadan haybe ayaa difaaca number 1 ku jira tiimkuna haddaanu mid ahayn arrintaa runtii guul lagama gaadhayo waxa runtii aan aad iyo aad ugu faraxsanahay ilaa intaan wasaaraddaa joogay in madaxda wasaaradda iyo shaqaaluhuba ay isku soo duubnaayeen arrintaa meel uga soo wada jeedeen waxaana jecelahay iminkana sidii inay u socon doonto axmed cali bayne xanuun nagu soo kordhin doono runtii waayo aragnimo iyo karti aynu ku difaacana hawadeenna runtii kulana soo wareegno sidoo kale agaasimaha guud had iyo jeer waxaa la yidhaha wuxuu u dhexeeyaa shaqaalaha iyo madaxda soomaalidu waxay tidhahdaa waa dhuunay adaa af iyo moqorba og marka runtii waxaan halkan ka qiraya runtii ninka axmed nuur faahiye halkan inta badan wasiirka ka ahaa shaqaaluhu siday u jeclaayeen waayo shaqaalahana madax u ah waan ogaa shanta subaxnimo madaarkay ma jiray qof buu la saaxiib ahaa runtii aad iyo aad bay u tabi doonaan waanu sii sagootaynaa wasiirka cusubna waa ducaayeynaa isagana waa soo dhaweyn doonaa waa garab istaagi doonaa wasaaraddana sidaa la sheegay runtii isma ammaanayne waxaan isleynaa intii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu xilka qabtay wasaaradaha isbeddelka ugu weyn sameeyey ayay ka mid tahay taa dadka reer somalilan keliya ma qiraan xataa dadka ajaanibta qaramada midoobay duwalka jaarka dhammaantood way qiraan waxay yidhahdeen wasaaradda madaarada jamhuuriyadda somalilan waxay ka standard sarreeyaan madaaro badan oo dalal la aqoonsay madaaradu had iyo jeer lama siyaasadeeyo kolba sidaad servicekaaga u hagaajiso iyo qaabkaad adigu isu dhigtaa lagu qiimeynaya waxa laga yaabaa dalal la aqoonsay madaarkiisa inuu blacklisted noqdo oo diyaaradaha ka kacaanay yurub tegay innagana maanta diyaaradda halkaa ka kacda caasimado waaweyn oo dunidaa bay tagtaa meel lama sii marto marka waa sharaf ay soo jiideen tiimkii wada shaqaynayay wasaaradda duulista uu hogaaminayay wasiiradii kala dambeeyey maxamuud xaashi ka bilaamayay runtii oo ahaa qofkii salka u dhigay cahdigan cusub wasaaradda duulista horumarka ay gaadhay iminkana uu farxaan gacanta ku hayo iyo annaga oo ah ilaa shaqaale weynaha tiim isku duuban oo dhallinyaro iyo odayaal iyo waayo arag leh oo runtii u faytay inaanu xaqiijino himilada qaranka dadkuna ay marun runtii ka nastaan waxaan kusoo gebagabaynayaa waxa aan kelmad ka yaro odhan lahaa shirkadihii dunidii waaweynaa oo dhan way soo socdaan shirkaddii alcarabiya way imanaysaa waxa had iyo jeer dadku isara weydiiyaan waxaasoo shirkad markay yimaadaan shirkadaheennii localka ahaa ay nala soo dadaalay garoonkoo cidlaa yimid iyaga macidaa loo sii daynaya iyagana runtii wasaaraddu gacantay ku haysaa tasiilaad badan bay u samaysay waxaa ka mid a mashaariicda madaarka iyagaa laga furu yeelaa waxaan doonaynaa inaanu labadaba isku hayno oo iyaguna aanay khadka ka bixin ee ay joogaan ay shaqeeyaan somalilanna ay soo jiidato diyaarado cusub oo dadku ay helaan adeegyo kala duwan oo qofka dhoofaya uu helo adeeg kala duwan waxa taa u sababa wiigii dhaweyto waxaan ka soo noqday dalka indian safar shakhsiga ku tegey markaan la soo hadlay tigidhkaygii aan bedelayay qoladii ethiopian airline waxay igu yidhahdeen labada gelinba hargeysa way tegi kartaa waayo delhi iyo addis ababa laba falayd baa isku xidha hargeysa iyo addis abana laba falayd marka macnaheedu waxa weeye gelinka hore iyo ka dambaba oo maalin walba ah hargeysa waa tegi kartaa runtii aad iyo aad baa runtii u farxay waayo waxaan garanayaa bar dadku beri dubay ay ku tacjadi jireen oo wiig falayda la kala waayi jiray marka imika adigoo dunida dabadeedii jooga inaad hargeysa gelin walba iman karto runtii waa horumar waa adeeggeenu rabna dadkeenu inay ku raaxaystaan hal qodobun baa ka dhiman oo ah shirkadaha iska soo daba dhacaya inay aqoonsadaan baasaboorka somalilan si dad badan oo muwaadiniin oo reer somalilanah ay u helaan access inay dhoofaan waxaad moodaa weli dhoofiddu ku xaniban tahay oo ku kooban tahay dad qurba jooga iyo dadkii ganacsatada ahaayee helayay baasaboorada dowlada jaarka inay weli dhoofayaan laakiin mucdii iyo dadka reer somalilan ee dhibaataysana danyarta ee aan awoodi karin inay baasaboor qalaad helaan waxaad moodaa weli inay ka xidhxidhan yihiin safarkii runtii arrintaana wasaaradda arrimaha dibaddu way wadaa iyo dowladda jamhuuriyadda somalilan way wadaa waana himiladeennu waxa weeye in baasaboorka jamhuuriyadda somalilan lagu dhoofo oo dowladda aan jaarka nahay sida etoobiya loogu tago dalal badan oo kale loogu tago si shacabka fursad loo siiyo aad iyo aad baan mar labaad mar saddexaad idinku mahadnaqay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وسير دولستي هودا فرحان آذن هيبي وسير الدولة عصب يعني أحمد علي محمود عداد حلدبانكا أو حلدبانكا يقع إبراهيم عرالة قدومية قربتشوكا عبد الله حرسي وإسنا وضيع ذير كي wasaaradda duulista iyo hawada lixdii agaasimo waxa maray way joogaan Anisa nageeyo ninkan xiriirinayo agaasimaha security-ga Cismaan Muuse Selef Muuse Aadan Ibrahim sagiirun baa ka maqan sagiiro waa dinosaurka wasaaradda duulista waxa weeye 60 sanadood buu ka shaqeynayay wasaaradda duulista 60 waa dinosaur وأنك خبير كويه وسارة الدولستا هل كان هو خبير كذا وأنك وحلقة ويديو لحدا صنادات بوها أيوه هل كافيشن كشغين ولنا أفيشن كويس واجسمها أفيشن إن مامورها مدار كيو مملك حجينك شغالها وسارة ده هل كان لنا صاحبنا يا شو اسمه أول اللي ياهو واسمه حسابيها مدار كا شركة لها جار كلولي ناشية صارم oo runtii ah shirkadaha udub dhaxaadka waa halkan wasaaraddan iyo madaarkaba special shirkadda SRM ama shirkadda security-ga marti sharafta kale halkan hablo iyo inamaba waxaan si gaar ah aan u salaamaya saaxiibkay Ahmed Salamaan Barre oo aan saaxiib muddo ahaan jiray oo imika soo galay waxa laga yaabaa shalay daraad buu yimi oo halkan ku arkay oo yimi xafladan ولبض النينة وادير كوي هاي سنة وصاع عمري صحافة طليها عيدا كاميجريشن وهالكم فرديا عبد السليمان ومن قال يا مملك حجينك كوباد مدارك محمد حسين لما أنت واحد يقول صلاة مع سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتا أولا marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud xilkii uu ii dhiibay muddo 4 sano iyo badh ka hor ah maantana uu gartay inuu inasiyo waan u mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka madaxweynuhu micnaheedu ma xilkii uu inasiyo sida uu sheegay xildhibaanku sida uu sheegay muxuu ahaa agaasimu sida uu sheegay maamulaha madaar waan nasin sababta waxaan soo qaban waayay 4 sano ka hor amaan aan oo 3 bilood gudaheedaan ku fashilmay oo xil gudasho ku qaadan waayay ma jirto waxaan u arkaa in uu madaxweynuhu qaranku uu inasiyay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa midna way idin sheegaya markii hore anuu xisbigan ka tirsanahay gudida fulintan ku jira hawl adag baan ku jirnay markii aanu ahayn marna xisbigan u tagi jirnay marna halkan hawli way adkaadeen imika waxaan u helay fursad xisbigii aan kaga marmarsoon jiray shaqaan ku jira saakan ku kalahay shaqo iyo madaarkii waxaan u tafaxaydan doonaa hadii Ilaahay nafta ii daayo arrimihii xisbiga ayaan u tafaxaydan doonaa hadii Ilaahay mid xisbiga kulmiye muddo 15 sanadood ayaan la shaqeynayay xitaa aniga iyo wasiir dawladda cusub Axmed Cali Maxamuud isku waxaanu isku ahayn muxuu ahaa bariga WhatsApp ma jiri jirin waxaanu lahayn group aanu dagaalka kaga wada jiri jirnay runtii isaga laftiisu waxa weeye waa raggii aanu la soo wada halganay ee xisbiga soo halganay 15 sano ka hor ayaa xisbiga 2002 markii la aasaasay xisbigan imika gaamuray oo xisbi gaamuray oo qaan gaaray annagoo dhalinyaro ah ayaanu xisbiga bilownay maantana waa naga soo odayaal baanu nahay xisbi markaa hawlihiisu maanta waxay maraysaa marxaladiisu waa xisbi dimuqraadi ah oo gaamuray oo hawlihiisu u madax banaan oo xeer hoosaad iyo muxuu ahaa dastuur intaba leh oo markaa aan maanta loo baqayn ilaahay deextiisu waa meeshiisa laakiin xisbi loo baqayo maaha xisbiga caynkaasa ee muddada dheer aan ku soo jiray ee golihiisa dhexe aan ku jiro ee gudida fulinta aan ku jiro ayaan imika u madax banaanaanaya oo u gacan banaanaanaya oo hawlihiisa aan ka qayb qaadanaya oo waxa weeye halkaasan hadda u badan doona hadii Ilaahay yiraahdo wasiir dawlaha cusub Axmed Cali Maxamuud
run baan idiin sheegaya adeer baan u ah wasiirka waxaan sidii aniga ila shaqayn jirteen ula shaqeeya السلام عليكم ورحمة الله سيئات أعمالنا فمن يهدي الله فمن يضلل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وزارة الدوليست هوada فرحان آدن هيبة وزير الدولي أن بدلي أديركي أحمد نور فاهية أقاسمها جود عمر حلبان كيغا إبراهيم عمالة أقاسمها غربتشوك عبد الله أقاسمياشا وزارة الدوليست هوada الشيخ علي مولود يا الشيخ عبد الله باشا oo culimadii waaweynada gobolka Togdheer iyo odayaashii gudidaydii rugta ganacsiga ee sharafta badan Maxamuud iyo Axmed Shabac oo odayaashii kale la socday ee iga daba yimi shaqaalaha wasaaradda madaxyada shirkadaha ee la shaqeeya wasaaradda duulista hawada marti sharafta oo dhan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي باب محله الله إسلام نماذج نقول أبوري نقول نولي نقول صار أيام محله إلهي بأنه محل نقلنا وحن شوقنا معلن رمضان وحن شوقنا بشي بركة الله هاي إلهي وحن كبرينا تنبداف مغفرة شانو نبتجليو يبرواق أينو إلهي كبرينا وحنو ما خدنا قيا ومن مهدو إنو قيا بدحوينها جمهورية الصومال الآن بدحوينها قرنكا أحمد محمود سيرانيو أو إيه عقتي إن كان نقضه كم بالنقضه هول وذينا ديسة gacan yarayaashiisa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan mahad weyn u celinayaa wasiir dawlihii aan bedelay Axmed Nuur Faahiye oo si niyad samaana oo niyad wanaaga oo soo dhaweyn leh ii qaabilay oo igu soo dhaweeyay xilka waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda duulista hawada oo runtii markaan xaggaa joogayna aan xan wanaagsan aan ka hayay markii aan u imina aan ka arkay qalbi furan soo dhaweyn iyo dareen iyo aqoon sareysa igu qaabilay runtii waan soo maray madaarka shaqaalaha badankiisana waa la kulmay waa shaqaale aad iyo aad u carbisan oo runtii soo dhaweyntooda iyo qalbi furaantooda iyo firfircoonidooda aan aad iyo aad ugu bogay markaan anigu isaga kiin warramo waxaan ahay dadkii joogay waddanka aan maalin ka bixin inaan dee meel u shaqo taga mooyaane maalin kama dhoofin 1984 baan ka baxay secretary suulka 1987 waxaan ka hawlgalay warshadii shamitada berbera 88 dagaalkii baan noogu dhacay markii la yidhi hooyo Norway nafta kula carar waxaan raacay halgankii hubaysnaa baan dhinaca ka raacay ilaa iyo waqtigaana social responsibility-ga qaybtada ayaa soo hayay markii waddanka la soo galayna waxaan iska dhigay dee wixii markaa hawshii la hayay waxaan u bilaabay inaan waddanka dib u dhiskiisa ka qayb qaato inaan naftayda ka bilaabo oo dhiso oo shaqo abuur sameeyo self employment aan sameeyo mar walba waxaa barbar socotay inaan ka qayb qaato hawlaha publica ee bulshada loo hayo
sidaa wasiiru dawlaha aan bedelay uu sheegay waxaan in badan ka soo mid ahaa dee xisbigan aan iminkana ka mid ahay guddigiisa golihiisa dhexe aan ka mid ahay waxaa la wada qirayaa intii xisbigan talada waddanka ku guulaystay dee waxaa qiray odayaasha deegaanka oo goobta fadhiya isbeddelka ay ku sameeyeen madaarka maaha madaarka oo qura dhammaan geyiga somaliland wuxuu ka sameeyey isbeddel la taaban karo 7 sannadood horumar aan isleeyahay marka la isku biirbiiriyo bini aadanku waxay si rationaala ayay u fikiraan markasta markay doonayaan inay wax kala doortaan ama cabir sameeyaan waxay wax ku saleeyaan logic marka qofku logigiisa uu isticmaalo aanu bias noqon ama aanu dhinac wax xaglinayn wuxuu qiimeyn karayaa wax qabadka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland 7 sano inaga oo jiray muddo 25 sannadood iyo dheeraada 7 sannadood waxay ka noqonaysaa 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan meeshaasi waxaanu garan karaynaa wax oo qofka de rationalka ee logic wax ku saleynaya oo arki karaya wax qabadka uu sameeyay waxa muuqatay balaqaadkii uu sameeyay xisbiga kulmiye inuu 9% uu ka soo baxay waxaas aad iyo aad u macquula inuu laabo 200% ka dhigo hadduu talada waddanka ku guulaysto marka loo eego dee hawshu waxay leedahay turunturooyinka 7 sannadood iyo caqabaadkii ka hor yimid isagoo ka faa'iidaysanaya waxaan aaminsanahay hadduu ku guulaysto talada waddanka iminka inuu 200% uu ka dhigi doono muraayadeen iyo madaarkeenna oo maantaba ah muraayad inuu ka dhigi doono kuwa maxaanku idhaahdayey madaarada waaweyn ee dunida haru martay oo kale inuu ka samayn doono markaan usoo daadego wasaaradda duulista hawada de waa muraayadda laga dhahdo nidaamka uu daleeyahay waa meesha laga qiimeeyo horumarka dalkaasi gaadhay waa meesha laga qiimeeyo cultureka iyo dabeecadaha dadka dalka ku nool waayo adeegayaasha airportka jooga servicekooda iyo adeegooda iyo dabacsanaantooda iyo siday dadka ajanabiga ama dadkooda imanaya ay ku qaabilaan ayaa waxay ka turjumaysaa dhammaanba dhaqanka dalkaasi u leeyahay sidaa darteed iyadoo ay ka muuqato dabeecadihii wanaagsanaa ee bulshadeen ayna yihiin dad la soo xulay waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala waan contribute garayn doonaa inaanu noqonno meel laga akhriyi karo horumarkeenna dhaqankeenna wanaagsan dabeecadaheenna wanaagsan iyo culturekeenna waxaan aaminsanahay inaan kusoo kordhin doono madaarka korqaadda adeega aan ummadeenna iyo martida inoo imanaysa aanu hayno ummaddu waxay ku kala doorataa cidda hogaamin doonta iyadoo codkooda uu ku xidhan yahay hadba wax qabadka iyo barnaamijka ay soo bandhigaan waxaan runtii madaxdii aan la kulmay aan halkan ugu imi ee soo dhaweysay aan rajaynayaa inaan contribute garayn doono anigoo la kaashanaya aqoontayda oo anigoo waddanka jooga oo aan maalin ka bixin aan ku qaatay oo businesskayga iyo ganacsigayga wata hawlihii qaranka loo hayanahaya inaan ku qaatay dalka gudihiisa shahaadada master degree in management inaan wixii aan ku biirin karo contributiona aan ku biirin doono wasiirkayga duulista hawada Farxaan Aadan Hiibe waa shakhsi team participationka ay iiga muuqatay inuu talada ku wado waana tal lagu horumaro hawsha lagu horumariyo aad iyo aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo gabagabeynayaa wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Farxaan Aadan Hiibe
صلى الله على نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرتي شرفت أيام مدحدة إيا عيانته وأنا سوق هذا يا هذا خير الكلام ما قل وذل. أنت كوبنا نحر كوتشون بالله الراعي يا رمضان. لما أنت وحلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وأنا كم هذا علينا حضورك يقص غيب قلقة وقيمة وين شرف وين بين نقطتين أنا كنت قابل له كوزارة دهان أنا أضيء وزارة ده وحليها هاي أدبوا مع ستي كص غيب قلقة رنتي سنها الدولة نبي كم يطاح وأنا قريش ودي بصير رجع ورا الشيء إن مالين بنين أو راميو أو قالين كيو عقلك يو فكر كبا وخد يقو سيدو دلكيس وحقوق ترى لو جددوا معها ما الله صار شقتها معها مصاريف هي العقي الدنيا ليه وساكريفايس وإن دلك سي أوبد كين ودحل ونعسنوه يا آية ونعسنوه هلا إن لو صدق ذي أو وقت جاء يا عقل جاء يا عدود ذي يا علم جاء بعض قد يقدر دلك وواجب قرن كين نقف كستو كم يدصارن تاسوم بقيب كتاهي سيدا مدحيون هو وجود ده عمر رجيس يوردن عمر رجيس أنت وجود بالنايد أما هلجن يهو جامد وجود سوق عتيد دلك لأنه صعيو إن قف كستو ما أنت تشوفنا ويسوون قيب كقاتم بقيب كتاهين ما أنت أي بدلان لبا أحمد وزير الدولة هيجي هراء أحمد نور فاهية وزير الدولة هيجي عصب أحمد علي بينح رنتي وحن لها هي أحمد نواسقوتينا ووحن لنا هي أسعد الله أوقاتك وهذه أيامك إلهي وقت جنا كو كالميو مالمها أنت كو هذا نروش هذا كو بركيو بركة نوجلين بركة قالي حق إلهي كيما رئيسه تإلهي بكتير سايو وحوي هلا هدي له بركيو وقلع سيرو فتحت هذا دوتان نقطة سياسة كي دوتان نقطة لما كل بكيل بركة إلهي كو قليه وقيمة ويوي وزير الدولة عصبنا وحلا يا هاي أنت أنا كبحي وزير الدولة هو وحن قرية ونكمل كعية إنه نكالين قليه هاي هلال له هجامين في عله تدسكو حين له دين له ومتدين إنه يهاي runtii waan qirayaa qayb weyn baan ka ahayd markaan imi wasaaradda inaan si fudud ula qabsado institutional culture dhaqanka wasaaraddu lahayd waayo ilaa aad la qabsatood fahamto sida u taalo qayb walba sida u shaqeyso oo dorosto qiimayso halkaad kaga xilmileed iyo waxaad ku dari lahayd aad u fahamto way adkaanaysaa inuu ku soo baxo nin waxaad noqonaysaa badweyn ku dhaxaftay تامرك واحد قرية إنه سجى يا جاسمه هي رجعنا ويمي مسؤولين تكليا جاسمه واحد يده أي ميزان وين كل يرنتي قيمنا يكتها هي هرمركة لا تابن كرو وزارة الهكستي قيمنا قاعدين قيمنا أيوب بهنتهين قاعدو وحنا كلام مركب صور دوين يا وزير الدولة العصب إنه يسوون رنتي أنت عنو شاكي سنة رنتي ملوا يسكش بحنايو civil society وكسور شقي سواء مركب صورة سنة بروفايل كيسه business كلو وكسور حشرون لبضة عم كسور حشران وسياسة درا دوا خلينا مكيسونا إلا مدير كسور شيء حزبية ده لا يشجعي صدق ملوا يسكش بحنايو تورنتي وأدبر وفرحة وينك هادو قرع سجلا صور حمره وحجران هي سيدا بني آدم خلوا ورد القرايو ومعامل كي ضدك يخلقيات كيس بواحد بدن كفهم سيح civil society كون قف كات كيس يقول لي هايو نبض وحقه مرة يسوي عند عنده فاقة طفاية سبر كذا وبهانت هاي وحويه وسمفله وقف محسنة تانا دلقات كذا رنتي قف وحمو كسيدانية سياسة دونا ده نجد بدن بيلا ده هايو نكو شهادة بدن بقول دعاية أو علينا بدن بقولية أو عدالس بدن بقولية أو وحد دوني ساداشي هم بيجي سيمان سيد دوني مرة كذا كذا صورة كلاهين وانن دون وتوا بدوين أي دوفان كوكعسي شيء نحط نحس عضوك له مرة مشيك وسكها تقول شرع صارتها تانا واحد سلي كباسة تيجي دي واللي هي فرحت بيتها مركاينا ما أنت مناسبة ده حلو ريتشين تان كلمة دوغدا مسكها إلى هذا وحان أورنا يا شيخ علي موليد يا شيخ عبد الله باشا ويا شيخ رجيك بعداها دين تهرموت كاها دقن كيو نبضة أساس كده هرموت كاها هرمرك وزارة غيب كاها رنت وأن آمين أن شيخ علي موليد وكله بدار خبرعه dhaqaajintii seemka qayb weyn buu ka ahaa inaan ku dhaco inaan dhaqaajiyo waayo haynteeduna way iska yarayd hawsha taalaana way badnayd laakiin markaad qorshe fiican samaysato plan oo leedahay hawsha waxaanu qabanaynaa muddadaas
annagoo eegayna hayntayada iyo wakhtiga muddaxileedka xukuumadda u hadhay doonaynana inuu legacy fiican oo taariikhda u gala madaxweyne ay u noqoto aasaaska iyo buddhigga iyo bilcamidda madaarkii burco oo runtii daruuri u ah isagiyo madaarada kaleba inay shaqeeyaan dalkan oo iminka culayska diyaaradaha saaran madaarka hargeysa dee waxa weeye kaa berberanaya mid cusub baa la dhisayaa kan haddii ay lagu wareejiyo dowladda imaaraadka sidii heshiisku ahaa mid cusub oo casri ah oo asaaskiisa isagana iminka la bilaabo ayaa isagana laynoo dhisayaa ka ceerigaabo kalena inaanu intaa misna wax ka qabanno waa doonaynaa inkastoo hayntu iska yar tahay oo waxay dee dhaqaalahay ku xidhan tahay ka booramana inaanu isna wax ka qabanno isna qiimayntiisa waa soo samaynay runtii markaa kaa burco sheekh cali baa taataaftay waxaan odhan lahaa annagu waa dadaalaynaa xukuumadduna waa dadaalaysaa ku talagal wanaagsan bay lahayd 3 sano inuu ku dhammaado iminkana la bilaabo runwayga in diyaarada kusoo fadhiisato oo shaqaysana la dhammaystiro maca terminaalka laakiin ilaahay gacantiisa iyo doonistiisa ayaa wax badan oo malaheena wax ka bedela ilaahay siduu doonayaa innaguna sibaynu doonaynaa siduu doonayo si aan hayna noqon mayso marka taana waxa weeye inaan ugu sabiro doonista rabbi caza wajal oo waxaan soo qaadan karayaa duruufta abaarada ee nagu dhacday qayb weyn bay ka hayd dhac ku dhacay madaarka burco miisaaniyadii loogu talagalay dee qayb baa abaarta aan ugu talagaloo nishida wallaahi duruufta abaar dadku ha noolaado madaar way iska samaysan doontaane haddana waxay nagu dhacay shuban waa ogtiino miisaaniyadda o dhan madaxweynuhu wuxuu go'aansaday isagoo duruufta u naxaya u turhaya dadka uu hogaamiyaha u yahay in laga fuudh yeelo wixii haynayna soo gala dakhliga ilaalinta iyo daryeelka dadka oo aynu isku beeqaamino haynteena iyo hawshayna sugaysa marka waxaan uga socdaa duruufahaasi waxay noqdeen turunturooyin runtii aanaan jilbaha u dhigin laakiin hakad geliyey shaqadii madaarka haddana falilaahi alxamd waa bilownay waanay socotaa guddida naftood hurayaasha ah ee mutadawiciinta ah een adduun ku qaadan ee u dhabar adeegay ee cayda iyo aflagaadada iyo inay tuhunku maalin walba dhabarka u ridanaya waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro idinkiyo inta kale idin garab siinaysa maamulka gobolka iyo heer xukuumadeed intaba ah waana idinku garab joognaa waxaana rajaynayaa biidni illaahi tacaala madaarkaasi inuu noqdo mid shaqeeya ama cala alaqal ay suurto gasho inuu sansaan shaqeeya yeesho intaan muddaxileedka madaxweynuhu dhammaanin biidni illaahi tacaala ganacsatada waxaa leeyahay waa laydinkaa gacan ka geystay maantana waa laydinka fadhiya waxaana oo kaloo aan dareen siinayaa maadaama uu guddoomiye u ahaa chamber of commerce burco wasiiru dowlaha cusubi horta aniga xil baad iga furanaysaayoo dee kolla siyaasadda u carar kolla danta qaranka u carar kolla hawada iyo ilaalinteeda iyo doodeeda u carar kolla madaarada iyo madaarka burco sidii loo samayn la sheekh cali mawlid kolba kala dhakays haysta wax badan baad iga furanaysa horta xagga burco madaarka hawshiisu inta badan dee waxaan rajeynayaa inaad dardar cusub la soo gasho waayo axmed nuur faahi runtii kaalin muqbal ku lahaa laakiin had iyo jeer xilka marka aad wax badan ka soo qabato ee siduu sheegay iminka 5 bilood baa ka hadhawa muddaxileedkii macnaheedu ma aha in lagu garan waayo xilka laakiin waxaan aaminsanahay dee ciyaartay cusub oo fresh ala marka qaarkood baa loo baahayay ciyaarta oo marka uu xisbigii hore iyo xukuumaddiisii hayo wax ka soo dhisay xisbigii waxaynu iminka ku tamaniyeynaa inuu mar labaad soo noqdo laba kacaleeyo dee waxaynu u baahanay ciyaartay cusub lafteeda isagoo xagga xisbiga ka shaqeyn doona xagga xukuumadda iyo gudaha iyo dhaqankiina rag cusub oo wajiyo cusub oo u baahanay taana inaad iyadana qayb ka qaadanto waa rajaynaysa oo axmedna garabka aynu saari doono oo runtii uga mahadnaqaya dadaalku geliyey waxaan kusoo ururin lahaa insha allah wasiiru dowlaha cusub tilmaanuman iyo dhaqan kalo dardaarana waa wada joognaa waxba kaala hadhi maayo ninka dee kusiisi ma higaatay markaan maqanahayoo waxay isku qof baynu nahay eedda iyo ceebta waa wada leenay horumarka iyo dadaalka iyo muuqashada wixii qabsoomana waa wada leenay laba qof laynoo kale xisaabin maaye eedeedii ceebteedu waa xil mas-uuliyad iyo waajib madaxweynena wada saaray weeye taa iyada xil inooma qaybsanee dee waxa weeye waxaad ogaataa wasiirka ninka ku xiga ee xilka sii haynaya waa wasiiru dowlaha weeye marka iyada waa wada joognaa hareerahaynu iska taagaynaa waxaan onan doonayaa shaqaale wanaagsan baa wasaaraddu leedahay runtii oo qiimo weyn leh oon maanta iyo maalin kale iyo haddaan maqanahay baan qirayo laga bilaabo agaasimaha iyo waaxyaha iyo wixii ka hooseeya ilaa madaarada iyo shirkadaha runtii la-aantooda aanay suurto gasheen shaqada wanaagsan ee hayso wasaaraddu waxaa diyaaradu kusoo hiranayaan diyaarada waxa la waa flag carrier calankay sitaan haddii layna ictiraafayo wuxuu ka turjumayaa in dowladdaasi nagu aqoonsatay inay diyaaraddeedii noo soo dirto
marka taanu inta badan u dadaalayno inaan diyaaradaha soo kordhino ma aha inaanu liidayno oo yarayno diyaaradaheennii waa jecel lahay daale iyo diyaaradaha lama halmaale jubba iyo kuwa la halmaala halgan badan bay nala soo galeen oo inaan waxba hayn oo ay noo qaadeen keenna buka oo ay heeryadeen aynu ku raranaynay oo inaan diyaarad xisaabin ahayn waqti adag baynu kaga soo gudubnay imikana ixtiraam iyo qadarin baynu u haynaa laakiin marka la eego duruufaha aynu ku jirro ee dalkani doonayo ee ictiraafkiisa ay ka mid tahay ee aqoonsigiisa ka mid tahay ee aynu ummadda caalamka usoo jeedno ka mid tahay ee aynu caalamkii ku qancinno inay dalxiisayaashu inoo yimaadaan ka mid tahay waxaa lagu weydiinayaa imse diyaaradood baa idin yimaadaan marka qofku maskaxda marka wuxuu qoray ninka maraykan joogaa dee waxa laga daalayna ninka gaalkii garan haddaad tidhaahdo waxay timaadaa Turkish Airlines ama waxaa timaadaa Fly Dubai markaa wuxuu odhanaya oh yes I know it waan garanayaa waa shirkad la yaqaano marka qayb bay marka falaagan ay sitaan calankan ay dhabarka ku sidato diyaaraddu wuxuu ka turjumayaa dalka calankiisii sababtaas awgeed baan u dhiirigelinayaa in diyaaradu soo kordhaan annagoo tixgelin iyo qiimeynaa siinayna diyaaradaha localka laftooda ku ilaalinayna inay saaxadda ka bixin waxaan ku soo ilaalin ilaahay garabkeena ha galo rabadaantana allah inoo aqbalo ducada iyo dambi dhaafka iyo naxariista anoo Jabuuti jooga ayaa la soo sheegay runtii magacaabista mar waan dareen baan qaato waxaan u qaatay ninka Axmed Nuur Faahiyo naga maqnaa Mareykan joogo waliba xanuun u baxay waan isir weydiiyey oo runtii waxaan war mala haddana qadarku qalinka iyo doonista iyo warqadda iyo qofka qorayaba ilaahay baa maamula hadduu qofku taa aqbali waayo oo uu qaadan waayo oo uu maalinta qiimeyn waayo inta sane ee uu qofkaa la shaqaynayay uu taa wax ku qiimeyn waayo uu taa eegi waayo dee dadnimadeena iyo islaamnimada diinteena lafteedu waxbaa u dhiman marka waxaan aaminsanahay marka waxaan kaloo isku qanciyay marka taa qadarka in ilaahay qadarkiisu ka adeegay qadarkaas umaana laguna wada jooga doonista rabbi laguna wada tegaya hadday aniga tii hadday wasiirro kale tii hadday madaxweyne tii hadday mid kale tag nin waliba qadarkaasu mu maartay nolosha geerida ka dambaysana waa qadarkaasu taa waa qaadanaynaa dabeedna waxaan isweydiiyey markaan taa ka tegey warina cali baynax oo waa kuwa ninka lagu keenay runtii xiriir badan baan leeyahay oo nin waxaan dee muddo dalkan maaragtay joogay oo waxyaalo badan gacanta soo dhigay wax ka qabtay markii labadaasi fee sheegay leedii civil society ka soo shaqeeyay baa mushtarina ahaa gudoomiyaha chamberkana ahaa runtii waxaan yidhi wallaahi waa garab iyo gaashaan marka insha allah garab iyo gaashaankaasaynu wada nahay ilaahayna haysu keen maaragtay barakeeyintaynu shaqada wada joogno magac wanaagsan iyo milga wanaagsan kaga tagno shaqaalahana waxaan leeyahay soo dhaweeya la shaqeeya u fududeeya xogta iyo inuu si fudud ula qabsado wasaaradda shayga muhiimka waa kaa weeye uguna duceeya inaad ducada ku aqbashaan oo maaragtay aad ku taageertaan qodob yaroo ka baxsan baan ku darayaayo waxaan maqlayaa had iyo jeer dadkeenu horumarna waa doonaya bal mucjisadayna haysata haddii horumar loo dhaqaaqana waa qaylinaya inkastoo aanay la yaab lahayn oo nebi maxamed oo diin wado oo ilaahay uga wado le warkaale jannaan idin wadaaye quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuun ayaa dee laga hor yimi oo la jallaafeynayo kabtiisa la jarayay oo qaar badan asbaabtiisa janno ku galeen maanta diintu maalintaa ilaahay uu soo diray uu keenay innagana waa saasoo kalena dulqaad bay u baahan tahay waxaan soo qaadanayaa waxaan arkaa adiga jeer marka waxa la madaarkii hargeysa waa la wareejinaya oo beena hadda waxaanu doonaynaa terminaal cusub oo intaasoo qof oo Soomaaliland ka shaqeyso oo dhalinyaro inaanu u dhisno war haddaanu sameyn weyno horumar sameyn weyno xaggee laga shaqeynaya maqayladu baan halkaa la fadhinaa waxaa la yidhi warshadii sibirka waa la wareejiyey shirkadaha lagu wareejiyey war haddaan la wareejin oo laga shaqaysiinin ma xadiidkeeda inuu daawanaa xaggee laga shaqeynaya waxaan leeyahay war waxaynu u baahanay horumar dal kale inaafici maayo meel loo doolaana inaafici mayso meel loo tahriibana inaafici mayso halkan ayna horan aan nabadeenna ilaashanno cid kasta oo horumarkeena iyo maslaxadeenna iyo shaqo abuuris ka shaqeynaysana war waxaa laga helayaa fursadee aan soo dhaweyno deegaanka doonaha noqdo Somaliland waa shay muhiima dhalinyaradana waxaa leeyahay mustaqbalka idinkaana berrito kuraastan la fadhiyaya idinkaa ah hogaamiyaashii berrito haddaa maanta u sabri weydaan oo fursad kastoo ganacsi iyo maalgashi oo la abuurayo oo la siyaasadeynayo ka eegi weynaan dhinaca wanaagsan ee ah horumarka iyo in shaqo abuuris la abuurayo cidda laga xumaynayo ee laga ragaajinayo ee guuldarrada carruurtooda ku dhacaysa waa idinka ogaada intii maanta laydin qaban laabaa
ayuunbaa idin dambarsanaysa inay idinkuna u halgantaan inaa abuurtaan maalgashi carruurtiinu ka shaqayso taana waxaan leeyahay war ogaada fursaddaana inaadaan iska lumin iyagana waxaan kusoo gabagabinaya dhammaan odayaasha halkan nagala soo qayb galay ee madax dhaqameedka iyo culimada leh xildhibaanka saaxiibkay oo si khaasa aan isna waxaan baliyanayo runtii oo rag nin aada u qaaliya waxaan leeyahay rabadaan mubaarak wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu Somaliland,
dadkayga Somaliland dadkayga Somaliland dadkayga Somaliland dadkayga Somaliland dadkayga Somaliland dadkayga Somaliland dadkayga dadku waa midkii ingiriiska tiray dadku waa mid ku dhahay يدير يولي يدير تطوى غميدي انجريس كثيرين تطوى غميد قرى يولي يدير يولي يدير بهدر يا هلا وحندون يا هنول عان عيدك لها غالي عان عيدك لها غالي مديدو والنبر مديد عانو سيجيجو ودقن أقل بهدر يا هلا وحندون يا هنول عان عيدك لها غالي عان عيدك لها غالي Somaliland dadkayga 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 Somaliland dadkayga
coladaha dabuma shido dariskii wanaag jecel ducayn kaantaasi iyo kibir coladaha dabuma shido dariskii wanaag jecel Somaliland,